cabsi hor leh ayaa laga soo sheegayaa meel u dhow deegaankii uu boobka ka dhacay horaantii toddobaadkan iyadoo Soomaalida magaalada Rustenburg ee gobolka Northwest ay dhawaanahan saaxiib la noqdeen boob iyo barakac joogta oo cidna raaligelin ka bixin gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida gobolka Northwest ee dalka Koonfur Afrika Cabdiraxmaan Sheekh Cumar oo u waramay TV-ga caalamiga ee Royal 24 ayaa u sheegay in la booway 4 dukaan 22 dukaan kalena ay ka soo barakaceen ganacsigoodii wuxuuna warka intaasi ku darayaa in hadda cabsi hor leh ay ka jirto meel 1 kiiloomitir u jirta deegaankii boobka uu ka dhacay ee Sunrise mar aan la xiriirnay ganacsatada deegaanka Bitcoin ayaa noo sheegay in ay jirto cabsi iyo huwanti la'aan xooggan isla markaana ay sii cadeysanayaan badeecadooda si ay uga badbaadaan dadka hirka ah ee u baxsanaya hantida muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku ganacsata South Africa horaantii bishii hore ayay ahayd markii cagta la mariyay ku dhawaad 60 dukaan oo ay lahaayeen ganacsato Soomaaliyeed kadib markii shaqaale caraysani oo ka shaqaynayay shirkadda Qoda Macdanta iyo dheemanka oo mudaharaad sameeyay oo ay sii qaateen wixii yiilay dukaamada Soomaalida deegaankaasi ma jirto ilaa hadda cid ka hadashay khasaaraha soo gaaray ganacsatada Soomaalida South Africa balse waxaa la sheegayaa in ay jiraan waan la doonayo in dib loogu celiyo deegaanadii Soomaalida ka soo barakaceen mar walba ayaa mudaharaadyadani dadka madowga ee South Africa sharciyeysteen in ay cagta sii mariyaan hantida Soomaalida si loogu fudeeyo dalawaadkooda maadaama ganacsatada Soomaalida South Africa ay yihiin cambuulo carab saaran Maxamuud Cabdullaahi Xuseen Aboke TV-ga caalamiga Royal 24 dalka Koonfur Afrika